inta badan dadka ku nool xaafadda Tawfiiq ee laanta shanaad magaalada Baydhabo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay u geysteen shakhsiyaad ku labisan dareeska ciidanka xoogga dalka waxayna ay tilmaameen inay dhawaan ay ka gubeen ilaa iyo 2 guri oo ku yaala xaafadda Tawfiiq dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka codsadeen inay arrimahaas ay wax ka qabtaan isla markaana loo soo dhiciyo xuquuqaha ka maqan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadda Tawfiiq oo arrimahaas iyo kuwa kale ka hadlaya guriyaalkan madoomo lama ee gubyo ku walanin ku maray dadkaano ba mar hore goril ka tumi markoo hayn lama hayn namako wali ay munu waayni godob ni roohay tan godob soo hayn wali godob ee jaroona ma oshini idoo noona foola yeelan godob soo haay unu lagun umtana oga waan haysanoona ma la idagna dabka ka daari isin barga haytan umnaba wala argaha gaar ahaan ananin haysada wali sabab ee langubo hayana ma oshini an oo aliyom maalin warsame degna xaafadda Tawfiiq laanta shanaad oo isbuucan toddobaad boje ee saataliin araga amboong maawta guryaal la gubi dad kumade hoog ciidamada hoog dalka Soomaaliyeed dad kumade inay gubeen taas ku horna dada may ataani la degan daris ee digil marfle geesteen oo jara inay leen haysana sagoone ee unu markasta ee mar hor imar dambeeb guriyaagan inay leen gubo hayo inay la gubi Soomaalida ilaa amaada dawladda lan askari in gubo hayo ciidanka dawladda gubaasu wali noo weydiyaas ogayn idoogan gubo hayto naxaysato wal ku dhagad wayn wal ku dhisad wayn gurubno dhisna gubaasu meelnaha noo burburiday noo duguti hatta xoogni haysato ki hanoo duguti ma ki kalena ilaa noo gubo hayto way loo dhabaata ee oo tirsaday anta deganay idaytan hayti an oo awlaaday rugan ya wali in kooyna dad libisan oo tuutuwadu 9 qof ee yaanti in ka kooyan awlaadiya oo dugdan idiya oo guben oo qolko reedkay hoggaalka dhisay isuuna qolkii kaleen wal gubi anin wal gubi afadan degana alsan ee wal jar ya idun ya degana may gaar ahaan ee wali ya ku codsaday oo shacab haan maadaama haafadii aan degana askar hay weerarti meelin ku kooy aan ogayn shakhsiyad aan gorodaw eed aan kasaw na dadkii la jareen libisin magaajo sidahan aan gorodaw diitay gubeen keekana lagu roogi siyeed bir wali in ku qobada in lahayn meelyo namankiya aan in lahayn namankiin lahayn ka qoban wali arin aan lahayn idayn geek siyeed bir gubsanta ya wali maamulka Koonfur Galbeed ku codsaday shakhsiyalkii iday gubi ani gorode muslim badan roogi lahayn qobada walna leen ku qobada dhibaatooyinka la xiriira dhulalka ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Baydhabo kuwaas oo wali aan waxba laga qaban Maxamed Yaqsiir Jito RTN TV Baydhabo